سنة كسته أو صدقوا النقطة قنددا سنة كاس لقول الصو ودرس ميزانية ده سنة كان ميزانية ده أنا جيت سوق بالبناء هرتي نتعلّه وحيوقع بسنة هاي سيدي عادة هاي خرج يدخل كنت لقالك الله بدأ كوني شان يلا باتنك أيها جودهان متجارية لأنك دخلك مركز لا يجو أو أوقع بسما دخلك جودها يدقها الله بدأ وحاول يكون قنايا هل بليون صدح بقول سداد طبعا كون أفر بقول شان طبعا مليون oo ama marka la barbar dhigo miisaaniyadii sanadkii hore oo iyaduna ahayd dakhligeedu ahaa 1 bilyan iyo 40 kun ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhaxeeya dhanka dakhliga labada miisaaniyadood ee sanadka 2024 iyo 2025 277 milyan dhanka kale kharashka ku talagalka sanadka 2025 ayaa mid lagu qiyaasay qadar dhan 1 bilyan 342 kun marka la barbar dhigo ku talagalkii kharashkii sanadkii hore 2024 oo isna gaarayay 1 bilyan 79 milyan ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhaxeeya 263 milyan oo dollarka Mareykanka marka aanu imaado dhanka faahfaahinta oo dakhliga aan ka horeeyo dakhliga gudaha ku talagalka sanadka miisaaniyadeedka 2025 ayaa wadar gaaraysa 400 milyan 373 milyan aan ku noqdo halka 429 milyan 373 kun iyo $4 halka uu ahaa miisaaniyad sanadeedkii 2024 wadar dhan 346 kun 217 kun iyo 146 oo u dhiganta korar gaaraya boqolkiiba 4 taasoo runtii muujinaysa dadaalada dawladdu gelisay dardargelinta dakhliga gudaha in ay runtii madhadhalayaan oo ay samaynayaan isbeddel la taaban karo hase yeeshee maadaama sanadku gabagaba yahay oo weli dhowr bilood inoo hareen ku talagalka rasmiga ee aanu filaynaa wuu ka sarreeyaa kii miisaaniyadda lagu ansixiyey oo ahaa 364 milyan ku talagalka sanadkan aan filaynaa inuu miisaaniyadda dakhligu ku soo xidhmaa waxa weeye 360 milyan oo tilmaamaysa runtii oo daraskan samaynay inuu ku iman doono dheeri dhanka dakhliga dhanka kharashaadka joogtada iyo mashaariicda ayaan rabaa inaan iyadana si kooban uga tilmaamo ku talagalka miisaaniyadda dhanka kharashaadka ayaa guud ahaan waxaa lagu qiyaasayaa wadar dhan 342 milyan oo macnaheedu tahay 1 bilyan iyo 342 milyan halka ay ka ahayd sanadkii 2024 1 bilyan 79 milyan oo keenaysa farqi 263 milyan oo muujinaysa iyaduna inuu yahay korarka miisaaniyadda dhanka kharashka inuu isleeyahay 24% ama 24 boqolkiiba kharashka joogtada ayaa qorshaysan sanadka 2025 ayaa
qadar dhan 610 milyan halka mashaariicdu ku yihiin wadar dhan 730 milyan kharashka ku talagalka miisaaniyadda 2025 ayaa u kala baxaya madaxyadii caadada ahayd ee had iyo jeer aan miisaaniyadda ku soo diyaarin jirnay sida adeega maamulka adeega difaaca iyo amniga hay'adaha adeega dhaqaalaha hay'adaha adeega caafimaadka oo wadarta guud isugu tagaya waxa sidoo kale yana xusid mudan oo rabaa inaanan ka tagin inta aanan soo gabagabaynin in dhanka mashaariicdana runtii uu jiro koror sanadkan halka sanadkii hore 500 milyan lacag qadar guud ahaan lagu qiyaasay inuu miisaaniyadda gelinay sanadkan mashaariicda miisaaniyadda ku jirta 700 milyan ayaa ay noqonaysaa guud ahaan mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh waxa aan rajaynayaa inaydun darsi doontaan miisaaniyadda guud ee hor taala marka guddigu uu ka soo shaqeeyo wixii su'aal ah ee aad qabtaan iyo afkaarana aad ku biirin doontaan ana diyaar baan u nahay inaanu ka jawaabno weydiimihiina iyo faallooyinkiina labadaba aad iyo aad baa u mahadsan tihiin intaasaan kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.